السلام عليكم وين السلامي ولاasheen firsan iyo dumarkaaba channel ugu horeyn soo dhawaada waxa maanta la wadaagayaa farshaxan yar oo bartay aan samaysto gurigana aan u samaystay in badan ina soo galiyay YouTube mar hore ila tahay iyako diyaarsan marka waxa weeyaan hadda waxa sameynaya qaar dalab ah ciidi ka hor qaar ma sameeyay marka kadib waa laga helay waa laga soo dalbaday halkan hadda aan sameynayo waxa weeyaan clinics baa lagu ridaa xagaas dad fahmi kartaan meesha clinics laga soo baxay weeyaan tan waa duntii maxay hayday maqaskan yar oo haystaa waxa ka sameynaa saddexdaas kalar asaanka iyo kan kalarkan kale iyo kan bluega أنا أركز مرتين وصل dalban kartaan calaamaanta xataa waan sameynaa insha Allah video-ga dhamaadkiisa idin ku tusi doonaa calamaan anigu ka sameeyay calaamaanta qaarkood anigu inta badan miskama sameeyo laakiin dhowr nooc gurigeyga waan u samaystay sida hadda waxa kamid ah bahashan sida aan furayaashan ku gurtaa hadda bahashan baa kamid ah tan waxa lagu gurtaa khudaarta kuley ayada ubaxyada lagu rido waxaas dhan way jirtaa marka inta badan wax ku sameeyaa waa dalab marka hadii laga soo dalbado ma sameeyaa hadii kalena ma sameeyo marka kulli calaamaanta qofba wuxuu ka soo dalbadan u sameeyay marka hadda intan kan iyo kan waxa weeyaan xabad laba kan oo laba mir baan sameeyay laba mir markaan sameeyayna waan isku dhajiyay insha Allah waxaan tusi doonaa kan xabadiisa labaad saa u sameynayo iyo maxay hadiyay isku dhajinteeda labadaba dib baan ka tusi doonaa marka xagan aan mareyno ha nooga sii socoto insha Allah hadii aad channelka ka hesheen ina subscribe noo saartaan asxaabtana la wadaagtid wixii fariina comment noogu reebtid like tan ha ka iloobina video-ga waxa uu qaadaa video-ga kor u qaadaa marka hadda markaan tii ugu dambeysay baan mareynaa xabadii ugu dambeysay meesha aan ka xiri lahayn markaas xabadii ugu dambeysay mareyno si aan inooga furfurmin waayo wax damo ku soo daba xirina ma jirto guntin waxa la dhahaa bismillah wa Soomaaliga bay gambiyeen guntin baan sameynaynaa ilaahay Soomaaligu noo gambinin waxa sameynaynaa guntin yar baan isku guntaynaa kadibna dunta ayaan xagaas dhex marinaynaa dunta marka xagaas dhex marisid waxa laga baahan yahay tan baaban ugu dhow qaybtan kala dhex mara marka muhiim aha marka xaggan ugu dambeysay maraysid xabadii aad doontid dunta qaybtii aad doontid qaybta dhinacan ka doontid bad ayaad dhex marin kartaa marka hadda saad arkaysaan guntinta xagaas baan ka xiray waan jiiday kadib marka saa u jiiday guntintii waxa dhex gashay kuusha dhexdeeda marka hadda guntin yar oo fiican aad u sameysid kuusha dhexdeeda ku galaysaa marka si aanay kaaga furfurmin dunta waa iska jari doonaa waxa sameynaysaa xabadaas labadaas u soo dambeeya maadaama ay ugu soo horeeyaan hadda xagga kuwan dhex marino waxa laga yaabaa in halka laga arko marka ma rabno in la arko dun dhex martay meesha sida marka xagga marayso soo qaadanaa maqaska si ay u jeedin way noo adag tahay waa hubinaysaa inay ku adag tahay intaan jarin hadii ku adkeyn si aad u geejisid okay hadda marka xagaas marayno waxaan bilaabaynaa kor baa u kicinaynaa insha Allah la socod wanaagsan marka kulli saad arkaysaan waa tan duntan ku sameysanayno lambarkeeda waxaad ka arki kartaa xagaas qaybtaas 70 sida jeedaan iyadoo 80 iyadoo 60 waxaas ba jirta marka waxaan jaranaynaa xoogaa in yaro dheer marka sayada dhinacaas baan dhiganaynaa kadib duntii aan jaranay ba soo ursan marka adiga hadda cusub tahay oo hadda ku cusub tahay lagaaga ma baahna dun kuma fiicnina dun dheer jaratid waayo way ku dhibaysaa moododi kartid hala yaabina qacmaha iska xirxirayna fartan iyo fartoma iska xiray kulli waa qacmahan ku giijinayo labada farood markaasi aan ii xanuunin waxaan waa caag waxa la yiraahdaa injir cangari wax soo kala abaal dumarka inta badan yaqaana bahasha waxa marka la dhalo la isku talo weeyaan marka
xoogaa way adag tahay marka jiidaysid oo geejinaysid qacmaha ku xanuunaya khaasatan labada farood ee yaryar ee ku geejinaysid marka dunta saas isku leekisiinayna labadeeda af si aan u kala dheeraanin hadhow toole marka wareejinayno marka isleekisiino waxaan sameynaynaa in yar batasan jiideena waayo markastaba tan waan guntaynaa marka si aanay dunta ku dhibin wax iska yar dul saar ina arkisiin in kala moojaan wax iska dul saaray maqaskii waan dhinacaas ka dul dhigay okay hadda waxaad xisaabsantaa marka meesha dul taagan tahay 3 baa ku bilaabaysaa maadaama kor u kacaysid marka markasta oo cusub tahay 3 baa bilaabaysaa kan weeyaan waxyaabo kale oo noocyo kale lagu bilaabay jiraan xabadaas dhexda ku soo jirta waa casaan iyo xabadaas saddexdaas mid soo qaadan laba cas iyo xabadaas marka waxa sameynaysaa xabad cas geli si ay koonaha u marto xabadan geli waa tii dhexda mareysay xabada kale casna koonaha kala geli saas badiyeysaa dunta xabada u dambaysa labada kale waa iska sideynaysan xoogaa duntu markay dheer tahay oo cusub tahayna way ku yara dhibaysaa marka wax lagaaga baahay inaad iska farsamaysid sa arkisiin labada waa siiday xabadaas baan ka soo dhex celiyay kadib laabigaas yareen u sameeyay baan dunta qaybtii labaad ee kala dhinacan ii taalay markii maqaska iskaga qabtay baan iskaga qabanaya kadib saas baan oranayaa marka saas iraahdo waxaan xidhayba saas bay ku xidhantahay waa fahamtay ma filayaa marka labada xarig sa arkisiin midna kuusha hoos bay ka baxday midna kor tan kan kor ka baxday waa kan ku xidhi doono markastaba kuusha ku rideyno tanna waxaan hoos marinaynaa kuushan dhinaca si ay kuulu isku qabtaan oo ay kaaga falxumaanin weeyaan qurux ugu soo baxdo kulli waan hayaa qaar badan oo diyaarsan way intuu si lahaa ugu dambeysay ku soo baxayso laakiin ma rabo inaad isi tuso amba videoga gadaal baan idinka tusi doonaa insha Allah marka 3 baa markii ugu horeysay ku ridnay hadda waxaan ku soconaynaa waa laba ku rideena laba kuulood markastaba waxaad la eegataa kalarka kuushaas ay ku tahay eeg waa tijaabinaysaa marka saad tiraadid haday isku ka kalar tahay waa okay hadayna kalar ku ahayn si ay baash kugu qurux badnaato aan qiyaasta waan la socdaa laakiin idinka idin tusaya si ay u fahantaan maadaama oo markii ugu horeysay tahay qofkii raba oo inuu barto weeyaan markii ugu horeysay maadaama tahay waxaad horeysiinaysaa kalarka dhinaca kor soo xiga ayaad markastaba horeysiinaysaa si uu u dul dhigmo ka kalena hoos buu xigaya ka hoos uu ku xidhmaya in arkaysiin baan filayaa videoga ma kala jari doono ilaa iyo horta bal ugu yaraan qaybta ugu horeysay soo wareejiyo saas buu videogu idinku shidnaanaya si ay u fahantaan oo ila jaan qaadi kartaan insha Allah saa marka tiraahdid waxa sameynta xoogaa marka ugu horeysa waad ku wareeraysaa wallahi macallimiintii anaka barayay khayr Allah siiyo meel nagu bareen maalintii ugu horeysay marka aragnay marka sawirada waan yaabnay waxaan nidhi wallahi kuwan sanad xataa kuma baranayno laakiin waxa la yiraahdaa wax kastaba waxa ka hor taagan waa bilowga haddaad mar bilowdid bas weeyaan waa waxaan ku leeyahay uma baahna wax dambe cabsi dambe kuma haynayso maalmihii ugu horeysay waxaan xasuustaa bahalkaas klinigiska sheekayar baan u dhex gelinayaa si aydan u cajisin kan oo klinigiska lagu xirayo amba klinigiska lagu dhex ridayo waxaan xasuustaa maalmihii aan bilaabay maalin inta macallimadu ii soo dhiibto igu tiraado inta soo samee inta soo wareeg soo samee intii wareeg aan isleeyahay ma sha Allah waaw si khatar baad u sameysay aan qaado aan geeyo baa lagu dhahaa ma sha Allah fariid si fiican baad u soo sameysay miya maqaska qaado jarjar adeer marka kuusha waxay ku fiican tahay dunta baa ka dhamaanaysa maanta dhan hadaa jarjartid dunta baa ka dhamaanaysa dunta baa soo iibsanaysaa laakiin tan waxba kaama noqonayso hatta maxay ahaydey in badan hadii guriga ku taalo oo uska ka noqoto amba wasakh qofos u yaqaano wad meedhaysaa saabuun iyo waxaan ku leeyahay saabunta weelka lagu meedho kale hadad ku meedhid haditoona yara qalijisid saa u dhigtid inta qalalayso wallahi qurux isma bedelayso ani hadda tan idin tusiyay maxay ahayd khudaarta lagu rito waxay ahayd wixii ugu horeeyay aan ku soo tababartay bay ahayd
completekii ugu horreeyay ku tababartay. Marka waxaa looga baahan yahay inkastoo wax dalab tahay oo dadka qaarkood qofba maxay ahayd wuxuu doono uu dalbado. Iminka hadda clinics kan oo kale kan oo kaliya baa laga rabaa oo 2 mid ah. Ciidii ka horna waxaan sameeyay 3 mid isla kalarkaas u baa laga dalbaday. Marka kale dad kalarkan ka wada helay weeyaan iga dalbaday. Marka waxa weeyaan asxaabay completeku wuxuu ka kooban yahay waa kan iyo wuxuu ka kooban yahay kan hadii si khudaarta lagu ridayo. waxa kale uu ka kooban yahay mid nacnac waxaas dhan way intuu si doona complete dhan waan hayaa oo calanka Soomaaliland maalin dhow laga dalbaday wali laga ma soo doona laakiin waan hayaa marka kaas way intuu si doona insha Allah. Marka wax weeyaan iyo maxay ahayd bahal yar oo dabool leh oo qurux badan walaahi kaas qurux baad ka helaysaa. iyaduna waxa weeyaan nacnac iyo waxaas baa lagu gurtaa miiska lagu saartaa qurux bay noqonaysaa. waxa kale jira 2 yar oo ubax lagu rito. waxa kale jira bahal yar oo san u dheer oo qalimaanta lagu gurto. kulay YouTube-kiga uu ku jira dad soo arki kartaan. ano maxay ahayd ku gurtay qalimaantan makeup-ka qalimaantan qalisuna iyo qalimaantan afka la marsado ee qoriga waxaas dhan ku gurtay. marka nooc kasta soo dalban kartaa. waxa weeyaan waxa laga sameeyaa iyadiyo tan lagu rito macmacaanada lagu rito ee 3 saas isku dul saar aba xataa lagu sameeyaa dad soo dalbatid. waxa lagu sameeyaa dabaq yaro dhagle waxa lagu sameeyaa aroosyada marka la soo hoynayo bahalada yar ee ubax lagu rido amba fulka ee lagu dul daadiyo aroosada markii soo galiso saa loogu daadiyo ee dhegta yar leh kaas xataa waa lagu sameyn karaa. whatever wax aliyaal waxa doontid baa lagu sameeyaa qiimo fiican oo waxaan ku soo dhaweynayna oo lagu sameeyaa. marka waxay noo mareysay kulli in adarkiisin baan u maleynayaa saan u wado video waa idin soo dhaweeyay si aad u aragtaan si wax u socdaan. markaas idin sheegay waxa sameynaysan asxaabteeda si arkiisin hadayna idin tuso hada fahmi kartiin in kamaradu waad tahay baan filayaa. kan casaankan wuxuu ku beegan yahay casaanka kale ka hooseeya kan markasta xabadaas hoosta soo taala waa inaad ka dhigtaa xabada labaad xariga markaad xireysid ku ridid ta soo horeysa waxay noqonaysaa tan bay dul dhigmaysaa sida kuwan u dul dhigmeen. tan labaadna waa tan hoos u degaysa oo tan ku beegmaysa. ina fahamtay marjeynaya abtiina waadix yahay sharaxaaduna waadix tahay kulli waxaan ku hore walayga waxaan maleynayaa inaad sharaxaadida fahanteen kulli macallimiinta sharaxaadaha aad iyo aad ugu fiican marka anigu macallimad weligay ma soo noqonin mana jecleenaano. markaad meel ka boodid ee wax khalad samaysid way iska qabanaysaa waayo waxay ku tusaysaa khaladkay ku tusaysaa moogtahay. imika saa iskugu ka dul dhigmayso iskumay dul dhiganteen hadaa markii aan xiri lahaa waa saas buu afku kala weynaa afkaas uu kala weynaan lahaa marka waan dareemi lahaa inaan wax khalday taas buu ku fiican ma fahanteen. marka waa kaas soo dhawaada nala daawasho wanaagsan. hadda maxaad arkaysiin tan baa casaan noqonaysa taa hoosna buluug bay noqonaysaa markaste ta soo sareysa ayaad horeysiinaysaan ta dambeysana waad hooseysiinaysaan sida markii hore kalarka man horeysiinayna kana waan dambaysiinaa hadda kaman horeysiinayna kana waan dambaysiinayna waayo buluug wuxuu maray hoosta markan ina fahamtay marjeynaya. dunta xoogaa igu yara dheer marka way yara dhibaysaa hadaad dheerin weydin imika dambe ka dhamaanaysaa maanta dhan waxay ka noqonaysaa in maanta dhan kabkabay ka noqonaysaa. insha Allah kulli ta way iga dhamaa markay iga dhamaatay inta si doona sida loo kabayana amba duntu markay ka dhamaato aad u gelinaysid
marka xoogaa wax wanaagsan haddaa fahmaysid wallaahi waxaan garanayaa markii aanu baranaynay anigu iskumaan dheerdheerayn jirin waxaan iska jeclaa inaan iska kabkabto waayo way hawl meedhan tahay hawl meedhan weeyaa markaad aad ku cusub tahay moogtahay ma fahansanid xadhigana xadhkiiba iskaa kaa dhex khalkhaldamayo markaas baad baasha dhan kaa khalkhalaysaayo kii aad ku waday iyo kii aad hoosta gelinaysaad kala garwaysa ilaa waa markii kuugu horeysay laakiin marka sidan oo kale aad baratid okay bay noqonaysaa marka waxaan garanayaa dadkaan isla baranaynay qaar ka mid ah marka xadhiga dheeraystaan kabkabka iyakana ku adkaa qaarkood marka inta marka hore dheeraystaan bay waxay samayn jireen lugtooda maaragtay suulka ayay saa ugu soo laabi jireen lugteedii saa u fidiyaan ayay suulka kusoo laabi jireen marka suulka kusoo laabto ayay waxay samayn jirtay kolba markay gelinaysay kasoo yara furi jirtay markaas bay gelin jirtay haddana suulkay ku celin jirtay marka wallaahi xoogaa xadhigaas baa yara adag mooyaane sida kale bahashu waa dhag markaan ku cusbeen ilaan geejis iyo waxaa lama haysanee macallimiinta markay farahaas wax kusoo xidhaan baan la yaabi jirnay waxaan ku oran jirnay maxaa ku fadhiiseen waxaan markaas baan oran jirnay farahana xanaya oo mayada waxbaana kala noqonaysa idinku waxbaad samaynaysiin bay nagu oran jireen idinka wixiin waa kabkabe ma waxbaad samaynaysiin waxaan kuli waa markaad barataan bahasha mar kastaba samaynaysaan markaas baad arki doontaa bay nagu oran jirtay aad u baahan doontaan ina aad gacmaha iska xidhaan ood ka ilaashataan inay gacmaha wax idin yeesho marka asxaabtayda waan xiiqaye xoogaa waxaan ku idhi ila socda insha allah baashana haddaad baratid maaragti ad gacanta mar saa u saartid wallaahi waxaan ku idhi wax kastood ilowsaa waad ku dul mashquulaysaa markaas baad haddaad dul fadhiisatidna ood bilowdid waxaad oranaysaa in yar 10 daqiiqo nusu saaca bal wax yar qayb yar iska sayara sameeyo ha kaa yara kala fududaatay wixii wax isku ilowsaa adigoo waxaad arkaysaa ole kolba alla sugbal intan aan dhameeyo qaybtan han xidho bal qaybtan kale han xidho wixii waxaad arkaysaa adigoo saacado dul fadhiyay baba xasuusanaysa wallaahi waqtiga wagaa way yara waa fadhigaas inaad ku daashid moojaane taasna waqtigaa la iska yaryaraystaa marba waxaan ku risaa jaanis ku heshid ba in yar lagu samaystaa aniga hadda xilli dambe habeen xilli dambe bay tahay marka ciyaalkii iska seexiyey baan samaynayaa marka hoto yar baan haystaa haddaan israado samee iyada soo jeeda kuusha dhan bay iga daadinaysaa kolba intii saa layga qaado banaanka la wadhaya markaasba haddana laysoo ururinaya maanta dhan haddana waxaan ku idhi ciiddi baan iskaga mashquulo maalmihii wallaahi ciidda ka hor baa layga dalbaday tan markaas baa laygu idhi welibana waxaan ku idhi iminka waa iska ciido ma karayo maye iska hayse baa laygu idhi jaaniso ciidda kadib unbaa lagaa doonaya aaweyde waaniga ciid iyo baashaal iyo iska galaye haddana waxaan ku idhi hawl yaroo kale iskaga yara mashquulayo hawshaasna insha allah markay soo rumowdo waqtigeeda ayaa idinla soo socodsiin doonaa insha allah waata dee waxaan ku idhi xilligaa ila marays xalay habeen hore may ahayd baa laygu idhi aawey bahladii xaggeed maranays maanaaba bilaabayba ma bilaabin maye jimcaha dambe inta ka horeys baa lagaa rabaa baa laygu idhi ma garatay marka bahashan waqti badan kaama qaadanayso iminka tan aan wado kale ilaa 3 saacadood ilaa 4 saacadood waad ku dhamayn kartaa laakiin dee yaa jaanis ka haya qof waxaan ku idhi hooyo oo guri joogta oo caruurtii maanta dhan caruurtiina u joogto caruurtii iyo dhar maydh iyo cunto karin iyo hawlo kale banaanka kale iyo iminkana waxaan ku idhi hawlo yaroo kale aan ku mashquulsanahay ilaaha soo fududeeyo markaas baa idinla soo socodsiin doonaa ay soo gabagabowdee halgamnuu yaraha ayay soo duceeyay asxaabteeda marka
yaaba dee intaas dhan u fadhin karaya. Waxaad samaynaysaa markaa inay kolba waqtigeeda heshid. Imika xalay baan isiri yara samee xalay toolana dee waaban ka mashquul. Waxaan sameeyay xalay toole labadan aan isku dhejiyay labadaas aan isku dhejiyay idin sheegayay iyo tan saddexdaas baan sameeyay. Tan qaybteedii labaad ku dhejin lahaa bay harsan. Waxaan sii horta tan iska yara taag in yar markaad kor u yara kicisid bal taa kana iyo qaybteeda kalena isku xidh haddana kor u yara kici marka dambana labada markaas ku agwad. Ma fahanteen? dee waa taas hawsha xaggaas bay maraysaa. Saan u wada inaad ila fahanteen baan rajaynayaa. waa kale waan fogfogeynaya kor baan u qaadayaa bahasha markaan aan xariga ka soo jiiday wayaan maadaama xarigu dheeryahay kamaradana idiin soo dhowdo aan isleeyahay ha ku bal ha fahmaan sidaad u xirxiraysid baan sameynayaa. Waxaas marka qaybta laabkaasna waa soo dhamaynay. laabkan baa haray laabkan buluugaa sareynaya casaankuna wuu hooseynaya. waad la socotaa ma rajaynaya. taas baan khalday laakiin taas baan kala bedelay. laa ilaaha illa iska dhaafsaa iska hati kuma noqon kare waa soo fogeeye. taas waa inta sheekeynaya baan iloobay. waxay inay buluugu hoosta marto sida kuwan kale ma arkaysi. taas buluuga ee dusha saaran khalad bay ku timid xagga hoose mari lahayd laakiin dib ma lahan saas baa okay ku tahay. Tawad haddaan laba liin sameeyo waa iska seexan doonaa. beri haddana insha allah saan jaanis ugu yara helo maaragti baan haddana waxaan kuulay in yaroo kale ku dari doonaa. markaas baan haddana dhigiyo ka yara shaqaysanay. markaas baan insha allah waxaan rajeynaya inaa habeen dambe aan iska dhameeyo xabadan. habeen dambe insha allah inaan tan iska dhameeyo waayo habeen dambe beri tolo waa isniin soma beri isniinta habeennimada salaasada bayna xabadan iska dhameeyo insha allah. aan bilaabo tan kale khamiista iska wareejiyo insha allah waayo jimcaha ka hor baa layga rabaa. qofka qaadanaya waa qof wax dhoofaya qof meeshan jooga ka yara baxaya weyaan. marka waxaa laygu yiri jimcaha baxaya inta jimcaha ka horeys waa inaad alaabta gacanta iga soo gelisid. waa in iskaga dhaqdhaqsado insha allah. intii hore waa iska iloobay wallaahi maana horta saa iloobin laakiin waa hawlo kale iska mashquulsanaa. ilaa dhowrkii cishay ciidii horena waxaan iskaga mashquulsanaa ciyaalka ciidsiintoodii iyo waxaas. dhowrkii cishay dambana ilaa 3 cishana horta waa iska nastayba dhag wixii ka dambeeyayna hawlaan galayba. alxamdulillaah adduunyada iska hawlo badan. saacadana maxay isla wareejinaysaa adduunyada iska hawlo badan. kuley aniga in badan baa iigu dambeysay baashan aan sameeyo
waayo Ramadaantan imikayna dhaaftay Ramadaanteedii ka hor baa iigu dambeysay anigoona wallaahi si fiican u baranin oo qacantu aad iigu fadhiisanin laakiin waxaan sameeyey waa markaan kusoo noqday mar dhaweyd baa waxaan go'aansaday inaan anigu qacanta sii fadhiisto aan dhowr bilood hadda ka hor baa waan sameeyey waan xayeysiiyey faynuusya xataa ka sameeyey kulli waa aragtay ma malayna markaa Ramadaantii rootiinka soo duuduubi jiray faynuus yaroo waxa jiray iftiimi jiray oo miiska saarnaa miiskayga kaas iyo kuwo kale aan ka sameeyey dad nin baan tusay mise dukaan leh wuxuu igu yiri keen soo samaysaan ku iibiyo mid kale waxaan ka iibiyey qolo kale oo iyaguna dukaan leh markaas waxay aragtay gabadhii baa ka heshay waxay igu tiri bahladan waan ka helay imsaad iigu samaynaysaa kuwa kaligiska lagu rito kaliya taan u baahanahay imsa mid 3 mid discount baan kuu samaynayaa baa intaas baa lagu sameeyaa waayahay 3dii markaan sameeyey bayba ka heshay haddana waxay tiri dad kale iga soo jeclaaday markaan qaado ayaa la oranayaa way anaka una siiyay intii kuwayga laga qaadan lahaa 2 milo kale ii samay sidii baan ku riyaayay keen nooceeyo kalaradii markii hore oo kale ii samay bay waayahay baan leeke sug imika laakiin waqti ma haysto maydhi ma laba tiriye ilaa ciid kadib chance iska hayso waayahay baan dhahay anaa dhag maanaaba is dhibay bad isma dhibtayna ina cali baa la yidhaahdaaye halkii baaban iska seexday jawda dheer habeen horun baa laygu yiri hay kuwaaway alaabti maanaaba bilaabay jimcihii baa markaa la sheegay waxa laygu yiri jimcihiisa baan baxaya intaa ka horeysa waan iska soo wareejisid alaabti waayahay baan waayahay isuga ana idinku soo wareejinayay iga degdegine isuga baan ku yiri waayahay bay tiri saas baan hadda uga gaargaarsiinayaa qaybtaas ina fahantay marjiinaya wareegeeda xoogaa baashan dhan waxaan ugu nacabahay daba inaan sameeyo tan weeyaan tan ugu hawl badan tahay qaybtaas intaas yar oo kaliyaata ayaa waxaan ku rafaad awlaa taas kaliyaata rafaad marka hore si u jilicsan tahay baas oraysa waxan baa waxa dhigto noqonays ila waa kuulo haddana waa tasaaw adag saawad ku istaagtay marka dad aragtid inay ka jilicsan tahay haw baqanin inkastoo markaad ku cusub tahay kulleyba jilic aad ka noqonayso oo geejiskii baanad garanaynin aan fahansanin marka laakiin markaad la yara qabsatid oo xariga iyo geejitaanka sidii loogu talagalay aad ka dhigtid hadad jilicaas iyo baashaas yara jilicsan aad ka aragtid dhib male markaad saas ugu qaqabatid isku xidhxidid bay noqonaysaa bahal taagan oo adag ma fahanteen marka qaybta waan dhigi doonaa waxay idin tusi doonaa taasteedii xabadaas goonida u taala xabadeedii baa idin bilaabayaa si aad u fahantaan isku kin xiranto ilaa isku xirka ayaa idin tusi doonaa insha Allah marka tamaas ka dhigayaa sugtaas ilaa laabigaas iska gaarsiyo koonahaas markaas baan idin sameyn doonaa inta kalena fahanteen ma filayaa kale video dheer buu noqonayaa laakiin si aydan waxaan ku sharaxaad iyo sida loo sameeyo aad u fahantaan maadaama markii ugu horeysan soo galiyay tahay aniga markii aan rabay inaan barto amba aan dib ugu soo celiyo bahaladan waxyaabo badan ba noocyo badan baa laga sameeyaa insha Allah waxa idin bilaabi doonaa hadda casharo aan idinku tuso maalin kasta noocyo cusub marka waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo quruxda yaabis baa laga sameeyaa anaka laakiin markaan baranaynay maadaama waqtiguna nagu yaraa bilowna aan ku ahay
waxaana la baray compleetkaas hadda aan idin sheegayay oo keliyata ayaan ka gaarsiinay intii rabadaanta ka dhinayd 2 bilood baan malaha aan dhiganay 2 biloodtaas baan ku baranay kadib waxaan damcay inaan waxyaabo badan oo kala noocyo badan aan sameeyo kala ramaahay laakiin nashqado badan oo intan aan aqaanay compleetkan ka duwan kadib waan waayayba Soomaali dhan baan ku qoray sida kuusha loo sameeyo waxay kale sida dadka dad maaragtay googlaha iyo waxay meelaha su'aalo waalan weydiiyo oo waxaan koodhay la soo screenshot inta ka soo qaadan hada meelaha soo dhiga sida maxay loo yeelo sida kan loo yeelada bura dadkaas oo kala noqday markaas baan su'aal kasta weydiiyay wax Soomaali ah oo soo dhigtay wallahi waan waayay kadibna Arab baan ku baaray English saw si yaqaan Arabti baan ku helay marka Arabiga haddana waxay igu adkaatay magacii baashi lagu oranay magacii ka lagu oranay bay igu adkaatay magacii baan raadiyay haddana magacii markaan raadiyay baan soo helay waxaan ku sameeyay Google Translation ma isticmaalay istaafar waxa marka lagu leeyahay qofku hadduu wax bartay ma aragtay wax si wax ku helo ma waayo hadduuna xataa garanaynin waxaas wixii lagu oranay wallahi waa run aniga maxay arkay waxaan ku isticmaalay Google Translation kadibna waxay soo baxday magaciisa kadib magacii baan haddana iska saxay marba ma Soomaaligu iska yara dhibaday Arabiga marmar kelmadaha qaarkood iyo Englishka ma keeno wax khaldan xataa kugu sheegay qaar aad iska garanaysid buuba ku sii waalaya ugu dambeyn waan helay markaan helay baa waxaan ku ori baan raadiyay Carabi baan ku qoray Carabti baan raadiyay ma sha Allah waxaan helay waxyaabo quruxda noocyada adiyaabisid ay sameynayaan kadib markaas baan wallahi waxaan ku intii hore garanaysay bal horta ku yar celiyo tijaabi ma haysan mise ma haysan way ka kala carartay ma haysan soo maaha intii wad haysan soo maaha okay hadaba ka bax maalin kasta waxa sameeyaa nooc cusub maalin marka saa idin sheegay kaama furfumayso ma ogtahay kuusha kaliya waxa lagaga baahan yahay inaad duntaas aad iibsatid dunta ka dhamaanayso mooyaan kuusha waxba kaama noqonayso kaama jabayso kaama kala go'ayso duntaas ma jarjaraysa markaas baan kolba nooc sameeyaa markaas kolba nooc sameeyo ila mar raba inaan macnaha kuul kale maalinta dhan kuul ba soo iibsanaya khasaaro cidna iga iibsanaynin waa ma laakiin aanu baan raba inaan noocyo badan barto waan sameeyaa waan duubaa waan sawiraa markaas baan haddana jarjaraa oo furfuraa markaas baan haddana kuwa nashqad kale aan sameeyaa isla kuushi duntu ma iga khasaarta dun kale ma soo iibsaday garateen marka waxa la yiri wallahi qof hadad ma aragtay aad rabtid inaad wax baratid inta maxay haday qofku wax ku baraya amba macalinkaaga amba macalimadada ay ku barayso inta adigu isbartid ayaa ka badan laakiin hadaa aad u tiraahdid inta la soo baray amba la soo sheegay kaliya to mar raba amba aan baranaya ma baratid weligaa yalla waxaad sugu in wax lagu sheego aniguna khaasatan cilad baan leeyahay ciladaas waxay tahay waxaan anigu aan ku rafaado oo barto wallahi ma iloobo imika ma sadaqaysin hadaan idin raado meelaha qaarkood waxyaabaha qaarkood aan markii bartay macallimiintu ay nabarayeen aan bartay oon xataa imika marar badan aan sameeyay marar badan aan dalab ku sameeyay wallahi markasto oon sameynayo waan raadiyaa meel aan iskaga saxo ayaan raadiyaa bal waxaan siraada malaha ama wax qaladay bal iska sax haddana laakiin waxyaabihii anigu aan isbaray meelahaas intaan ka daadaawaday aan isbaray ma ilaabo ma fahanteen marka iminka tusaale ahaan haddii aan meel u baxayo oo meel aan weligay arkin aan tegayo kale meeshaas haddii la tilmaamo oo tilmaamta ma aragtay marmar sax kuma noqonayso waa inaad raadiso ku yar rafaadid meeshaas weligay Allah ma iloobo laakiin meesha la geeyo iyadoo la wada la geeyo maalinta labaad hadaa siraado ku noqo aan ka lumaaba maba gartaba marka kale dad badan oo ila mideen inay jiraan baan u maleynayaa intaad adigu aad isbartid
ayaa ka muhiimsan inta lagu baray. Muhiimada dhan ee inaad barataa ay kuugu xiran tahay waxa weeyaan inaad baratid sida dunta la iskugu xirxirayo iyo kuusha iyo inaad baratid ina maxay hayday ay duntu haddii aad kuusha wax meel ka khaldid sida inaad dunta xaggan hoos marinin oo kale sida inaad geejiskiis ka xumaysay oo kale sida inaad tiro ka badan aad ku samaysay oo kale imika say soo tusay halkaas markaan ku bilaabinay 3 baan ku bilownay qaybtaas kor u kacaysa 3 marka ku bilowdid wixii ka dambeeyay laba aad ku risaa hadaa 3 ku ridid oo kale sida hadda ay tahay ma ahaan soo isbedelaysaa naqad kale noqonaysa marka hadaad baratid hadaad fahantid meesha khalad kaaga jiro inaad iska qaban kartid duntana marka kaaga oo kale duntana aad xiran kartid mar labaad aad ku biirsan kartid aad fahantid uma baahna boorso yar baan ka sameeyay boorsadaas na wallahi meel kama eegan runta wanaagsan laakiin kaliya meel baa waxaan ka yar arkay sawir boorsan ka arkay kadibna waxaan isiri sawirka boorsadaasi bal siday ahayd bal keen maanta waan sameeyay ugu dambeyntii waan keenay marka alxamdulillah boorsadii inantii yar baa ka heshay isla maalintii ay u qaadatay ilaa imika lagama karo qof kale haduu aragto oo taabtay way ku qaylisa wax ku tiraa boorso aan iskala maama ay sameysay boorso yar qurux badan weeyaan ayadana videogan qaybta dambe ku soo tusi doonaa insha Allah marka waa ka heli doontii marjeynaya dhamaan hada waxba noo ma hadhay inta yar baa noo hadhay intaas markaan xidhno ma aragtay markaas baan idin tusi doonaa qaybta kalena maska wada dhameyn doona saa idin sheegay baashan hadaa bilowdid iska ma ka qabanayso say iska ka qabataa way adag tahay ma fahanteen marka waxaan rajeynayaa inay fahanteen xoogaa boosta yara qabtay waxaan sidii dhadhaway video-gu uu dheer yahay talabaad waxaan rabaa inaan idin tuso ka kale saan u sameeyay iyo isku xidhkeedaba marka sa arkaysiin hadda uu soo dhamaanaya waxa xabadaas kaliyaata taas marka xagga koonahaas maraysid waxa sameynaysaa maadaama xaggan 3 ku bilownay markii ugu horeysan bilaabeynay labana ku soo wareejinaynay waxa sameynaysaa xabada markaad hoos gelisay sidii kuwan kale oo dhan xabada hoos gelinaysay taas oo 3dii aan markii ugu horeysan bilownay tooda ugu soo koonaysa ayaa saa u sii dhex gelinaysaa si ay isku leekaato weeyaan xaggan kadib labadan af ka doontid baad gashanaysaa kalarka ku hoos jira hoosta yaala baad eeganaysaa kalarka hoosta yaala waa maxay waa buluug markaad sameysid isku keenaysaa xabad kaliya aad ku xiraysaa marka isla wada sameeyay ma aragtiin hadhow markaan dhamayno 7 jeer baan wareejinaynaa 7 imika kii ugu horeeyay baan sameeyay soma kii ugu horeeyay markaan sameeyno 6 kala wareejinaynaa ma 5 kala wareejinaynaa marka xaggan baad ka tirsanaysaa taa hooseysa ayaad ku tirinaysaa 1 baad leedahay iyo 2 imika saa 2 ku haysanaa halkaas markay 7 1 2 sama 5 kala sameynaysaa 7 markay noqoto ayaad joojinaysaa kadib saas waa inuu u dhigmo ma fahanteen halka kiliiskii la soo gelinaya halkaasna kiliiskii waa laga soo baxaya tak hay okay ka dhinacaan oo yara dhiga kan kiisi baan bilaabaynaa marka waa inay isku ekaadaan sida tan isku ekaysiinay qaybtan iyo qaybtan isku soo sameeynay tanna waa inay isku ekaadaan maxaa sameeynaya waxa weeyaan waa iyadana waa imsa waa 1 2 3 4 binac ka tahay iyo xabadaas yar xabada yari waxa xabada yari hadhu toona nus ka noqonayso arkaysiin naka nuskaas weeyaan hadhu toona nuskaas ina arkaysiin ma filaya intaas qaybtaas yar ka ku xiran waa qaybta hadhu toona saas noqonaysa ka kiliiska laga soo bixi doono kaas la socod wanaagsan bismillaah ugu horeyn duntii soo goosanayna xoogaa iska yar dheerayso hal mar ha kugu xiranto
inta dib u jarjaran lahayd kolba maqaska dhinacaas iga dhig dunta soo ururso dunta markaa soo urursatid waxaa soo qaadanaysaa laba buluug ah siday tani tahay waayo halkaas bay ka bilaabanaysaa saa la socotiin waxaan sameynaa markaa soo qaadanaa laba buluug ah iyo xabad casaan iyo xabad kalarkaas marka waa in isku sii noqdaan buluug kadib waa buluug may kalarkan baa ugu horeynaya sug wixii bas ku dhex dardara kan baa ugu horeynaya kadib buluug baa ku xigaya kadib waxaa ku xigaya kadib buluug kale ku xigaya kadib dhinacan kale isla dhinaca kale tood ku shubi kartaa sugaan tusa dhinaca kale taa idinka tusayaa casaanka ugu horeysii casaanka koonahaas mari kan ku xigsii labada buluugna is xigsii fahanteen ma rajeynaya okay saa markaa samaysid dunta labada af isleekaysi dunta intaas dhammaan goosanaysa arkaysiin labada af marka saa iskugu qabatid labada af saa arkaysiin isku qabanay si ay isku leekaadaan nooga kala dheeraanin haddii kale hadhow duntu qaybna dheeraanaysa qaybna gaabnaanaysa sidaa markaad koonaha ugu dambeeya aad taagan tihiin dhinacan wareeji buluuga taa buluuga soo geli waa arkay saddexdaa kale lama taabanay xabadaas ugu koonaysa ugu sareysa baad dunta ka soo celinaysaa ma ka soo celisay waa soo wadaysaa marka aanay kaa soo wada bixin in yar warsanta inay kaa soo baxdo baad ay joojinaysaa tii kale aad ka soo dhex saaraysaa ma ka soo dhex saartay saas badanaysa halkan bay guntintii ka muuqataa soo maaha saas baad u yara jiidaysaa saa moo yara jiiday kadib waad saas bay guntamaysaa fahanteen ma rajeynayaa hadhow markii saas noqoto haddaba tani way yara hawl badan tahay qaybtani sug bal caadi u fariiso maxaa khaldan macna caadi iska dhig duntii baa lala hadlaya kuushiye waxaa sameynaysaa waxaa lagaaga baahan yahay 3 inaad samaysid 3 kan ka dhig mid maadaama ku xirnay hadda waxaan sameynaa qaybta kale tan xaggan ii dhig dhinacan kuusha dhinacahan dunta dhinacahan baan ka wadaa waxa soo gelinaysaa labada soo cesho labada marka soo ceshatid saa ka dhigo waxa ku haray xariga dunta qaybtii labaad xabad kaliya soo geli xabad kaliya ma soo gelisay ayadana soo jiid waxa isku soo dhawaanaysa arkaysiin labadii af xagan ka dhex tusi keen hawgaatan way yara dhib badan taani xataa waa nacaba bilowgeeda markasta waxaan siraadayaa kuu soo bilaaba hadaad heshid qof kuu soo bilaaba markaas arkaysiin waxay noqotay dhinacan buu casaanku maraya dhinacana buluuga maraya xagan dhexdana sidan oo kale noqonaysaa sidan oo kale noqonaysaa kan baa ugu horeeyay waa kan buluug baa ku xiga waa kan baa ku xiga haddana markan buluug baan gelin doonaa sidan saas ma ku wadaynaa mar buluug mar kale si ay isku mid noqdaan mar walbana dhinacan casaanka ah xariga dhinacan casaanka xiga waa inaad casaan ku rido xariga kale dhinacan kale xigana waa inaad ku rido marba kalar mar waxaan ku ridaynaa laba buluug ah marna waxaan ku ridaynaa xabad buluug iyo xabad kalarka kale violet baan u aqaano kule ma garanay idinka waxa u taqaaniin laakiin muhiimadu waa kalarkii baa arkaysiin marka waa kaas kan aad ku ridaysid casaanka wuxuu noqonayaa kii aad hadhow toole kasoo dhex dusinaysay bismillaahi kamaradii waan iska ridi gaaray maqaama inta taagtaagay ayuu noqonayaa inaa fahanteen ma rajeynayaa markaa waad xidhaysaa geeji oo dunta iyo kaa soo bixin guntintu iyo banaanka kaaga soo bixin si
si hadhowdi kala kaasoo wada muuqanaysa markaad bahalka wada sameeyay maaragtay uu taagan yahay sidan oo kale markuu noqdo saas oo kale markaad u sameeyay maaragtay amba marka sidan oo kale u sameeyay meelahaas dhexda ayaad arkaysiin meelaha dhexda ay guntintu ka soo muuqanaysa dad guntinta xariimeed marka iska xareeya ku dadaal inaad dhex gelisid guntinta kuusha dhexdeeda marka waxaan isticmaalaynaa waxa weeyaan xabad buluug ah iyo xabada violet-ga iyo xabadii casaanka koonaha kale xariga labaad asaan buu haakiisu aniga isku jiide bismillah fartaas waa caawinaysa isku kay duubayo markaasba way iga dhacday batiina meesha yar ku sameeyay markaan ka kaca maaragtay waxaan ka soo ururiyaa intaas oo kuulo iga daadatay hadii carruurtu soo jeedaan iyaga shaqo uga dhigaa kaalay soo ururiyo iga dhacday kasba inta lagu soo ururinayo inta dib lagaaga sii daadinayo isla kaanaysa masha Allah carruurta ilaahay noo daayo saas baan ku soo wadaya asxaabay hadda xoogaa waxaan ku oray waa yara fahamtay ma rajeynaya markaas aan linkaas oo soo wada taago baan ku soo noqon insha Allah in arkaysa ma filaya marka halkaas taa dhexda maaragtay aan ka bilowno koona taas iyo talabada waad ka tirsan kartaa marka tiradan iyo tiradan kulis ma leekaanay laba way kala horeeyaan markii tan xagan bay ka bilaabmaysaa tan xagan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bay dhinacan ka tahay markay dhinacan 16 ka tahay dhinacan 15 bay ka noqonaysaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arkaysiin xabadii 16aad xabadii 17aad oo dhinacan 16 noqonaysa dhexdana 17 noqonaysa sida hadda ku soo wadno ma soconayno waxaan isku qiyaasanaa labada xarig kii dheer qaybta dheer baan marka maxay xidhay aan ku soo xiranaynaa markii hore si arkaysiin waxaan ku wadnay inaan tan kana aan ku shubno xabad casaanka ah kana aan laba ku shubno marka laakiin hadda maadaama xabadii u dambeysay ay tahay aan ku xireynay waxaan sameynaynaa xagga maxaa maraynaa buluug marka waxaan ku xireynaa waxaan ku ridayaa xabadda casaanka baan ku ridayaa waayo koonahan bay maraysaa waxaan ku ridayaa kale buluug baan ugu soo horeeya marka waa inaan kalarkan kale ku ridno ina fahanteen ma rajeynaya iyo haddana buluug marka xaggii aan saddexda aan laba iyo xabad ku kala ridaynay baan xabadii u dambaysa markaan marayno waayo si uu wareegu noogu fududaado baa waxaan sameynaynaa saddexdii meel kale iskugu geynaynaa xariga ma soo qabsanaynaa kale waan ka dhex tusinaynaa sidan baan u xireynaa aan kiicinaynaa dunta si ay dhexda noogu gasho waxaad arkaysiin baan waan filayaa xariga inuu kala wareegay midna uu hoosta marayo midna dusha kan hoosta marayo waa kan hoos gelin doono kan dusha marayo waa ka kuulaha ku ridi doono hadda marka xagga taaganahay intaan wali taas hoos marinin xariga waxaan sameynaynaa waxaan ku ridaynaa saddex buluug ah maadaama aan idin iri inaan kala duwaa ayaa iska fiicnayd laakiin maadaama idin ku iri kan oo kala sameysanaynaa hadhow marka isku xulmayaan si iskugu kala marabnaa buluug baan dhinacan marnay dhinacan casaanka marnay ina fahanteen ma rajeynaya waxaan ku xireeyaa saddex buluug ah baan ku ridayaa saddex buluug markaan ku rido waxaan ku xireeyaa dunta waa saddexda dhinacan aan ku ridayna meel kale taas ugu geey inaad fahamtid inaad arkaysiin ma umaleynaya oo fahanteen markaan xidho waxaad arkaysan inay qayb kale ku beerto intan iyo intan kala sareyso saa waxaan ugu bilaabmay qaybtii dambe wareegii labaad dunta hoos marso sidii caadiga ahayd xaggan ba waxay nooga bilaabsan markaa kuwii caadiga ahaa nooga bilaabmaya laba buluuga soo qaado kurid
dunta xidh sidii kan weyn markaan kusoo waday oo kale un weeyaan ayada ku rid dunta xidh hoos mari kadib haddana kusoo rid dunta xidh hoos mari sheekadu saas bay ku soconaysaa ilaa iyo dhammaadka ma fahanteen waa kaas saas baan ku soo wadaynaa waxaan ku ridaynaa laba xabada hoos marinaa labaan ku ridaynaa waxaan leeyahay xabada laba ku ridaynaa waxaan leeyahay xabada marka kuwaas aad moodid inay qalqaloocaan way toosayaan marka saas u xidhno sida kuwan hore soo aragtiin way tooseen saas bay iskaga toosi doonaan iyakana iyadoo sad dhag noqotay isku soo noqonayna insha Allah saad arkaysaan waan soo dhameeyay xabadii u dambeysay waan maraynaa marka waxaan rabaa sida tan waxaan ka dhigay Soomaa qaybtan ban casaan ka dhigay qaybtan yar casaan baan ka dhigay waxaan rabaa inaan blue ka dhigo si ay markaas ku xiriir qurux iskugu soo baxdo okay marka laakiin tan qaybtan kale waxaan u harsan liin casaan ah sida liinkan u soo wareejinayo kale liinka waan dambaysiin doonaa marka waxaan rabaa inaan tuso inta yar markaas intaas yar aan u sameyn karno xabada ugu dambaysa marka marayno xaga ku tan baan ku soo wadnay markii hore tan waa tii hoos gelina tan aan hoos gelinaynay baan ku ridaynaa labada midho ugu dambeeya ku xirayno taam ku ridne taam markaan ku ridno sama sameynayna jiidayna tii kale aan hoos gelinaynaa markaan hoos gelino xarigiisa aad arkaysaan sidii dib weyn ugu noqday ma aragtaan marka waxaan ku ridayaa laba saddex markaan ku xiro kuwa kalena u toosaan marka waxaan hoos gelinaynaa tan qaybtan yar in badan ma wadi doono waan idin tusi doonaa tirada insha Allah la socdo markaan saddex baan ku xirnay marka hore hadda waxaan ku shubaynaa waa laba kan hoos geli laba haddana hoos geli laba haddana hoos geli ma fahanteen waa kan tirso inuu ka bato maaha xaga wax marina mar walba taa taagan baa laga tirsadaa 1 2 3 baa marina sama saddex taagan baa marina ilaan labadan aan ku shubayno midna hoos bay u dhigmaysaa midna way taagnaanaysaa okay labadan aan ku shubayno mar kastaba waa mid waa tan midna waa tan waa tan waa tan waa tan iyo tan weeyaan xabadii go'aysa ku soo bilowday maadaama ayada saddex ku bilaabeynay مثلا هيسنا صدح سما حبتي أفراد تيشنات بهذا تاشنات مركان دم يسنا هنحرنه هذا أنا قيبت كلام عن الشن كلا ساسو كلا قصص مننا تقول دم يسنا كحرينه لبا لما كانت كده كتير تن قيبتن كسكم الله بينه وانكنت هنا si aan inooga kala furmin waayo ma sii soconayso Soomaa tii soconaysa baa la hoos geliyaa way isqaqabsanaysaa marka la hoos gelinayo tanna si aanay guntintu xataa kaaga weynaanin waa inaad ka taxadirtid si markaas adunto kuusha aad hoos gelisid ay noqoto guntin yar oo kuusha kuugu hoos gasha markaad gunudid labada af mid ahaan kan arsileedu uu soo dhow yahay dunta kuusha ayaad gelinaysaa kadib saas baad u qabanaysaa oo labadaas baad qabanaysaa iyo kuushan xabadaas kuusha ka celinaysid oo qabanaysaa wakaas saa u geeji kadib tan ugu dhow ee hoosta hoos geli soo isku qabto bas inta iska jar tan jar فهمتي مرتين إن يروك الوطنة إن يروطنة بضنين
baan goosanaynaa yar haddana badnayn markaan goosanayno imika tan ilanyadii wareegaysaan ku sameynay markaad rabtid inaad gashitid bilowga hore aad tahay xabadaas laba halkaas ag taagan tani hadaad gelisid dhinacaas kale kaaga soconaysa marka tan laakiin hoos u soo foorarto daboolkeeda hoos soo fooraro eed gelinaysaa dunta isku qiyaaso isleekaysi amba tan aad tan sareynaysa yara dheeraysay ila waad laabaysaa si uu markaa laabi waa uu kaaga goyn hadii kale haddaad tii hooseysa aad dheeraysiisid tani sareysay aad laabaysid ayaa kaa gaabanaysa 3 baad ku shubeysaa 2 ku xidhi gaaray markaysiin intaas sharaxaysi wax badan ma kaa khaldami kara taxadar ka samee suga okaas waad aragtaan baan filayaa si isku taagtay kadibna tan hoos geli dhag laba kala soo qaad wixii aydan fahmin insha Allah commentiga igu soo qora iyadiyo tiyo faahfaahsan oo waadix aban idiin soo sameyn doona insha Allah hadii jiro waxaydan fahmin oo jiro la soo socodsiiya hadii Ilaahay raaxo weedankaas hadda 3 baan maraynaa sadarkiisiin tiya farad waatan aan gelinayno tiya farad waatan waxaan rabaa inaan qaybtan kale idin tuso si aad u sii fahantaan qayb kaliya waxa lagu fahmi karo Soomaa hadda markaa waxaan sana 1 2 3 4 tii shanaad weeyaan waxaan idin iri dhinacana 5 ka soo samayso dhinacana 5 ka soo samayso okay ta shanaad laakiin ha hoos gelinin halaabin dunta waxa sameynaysaa wad guntaysaa mid u dambaysa mar kasta oo ta u dambaysa aad maraysid meesha dunta baa noqoto oo wax kale aan ka sii dambeeynin oo sii wadaysaa guntinta ku fiican oo ku adkaanaysa fahanteen markaas saxa ka hoos mari kadib iska jar okay qaybtan kalena iska jar iska ilaali marka jaraysid in dunta hoose kuwa hoose haysa ay ka raacdo sa arkaysid marka way kala yartahay markaysid waad arkaysid tan way dhuuban tahay tan way balaaran tahay qaybtaas saas oo kale isku duldhig saas oo kale qayb ka maqan Soomaa qaybtaas bay dheertay qaybtaas asaa ka weyna soo sameeyno markaas ku soo noqono markaan qaybtaas soo sameeyo waan soo sameysanay labadii qaybood hadda waxaan maraynaa isku xidhka markaan marayno waxaan soo goosanaynaa in yar ah iska badin iyo ka khasaarin labada kalar markay isku eeyihiin waad isticmaalaysaa laakiin markayna isku eekayn kan ba isticmaali kartaa kama isticmaali kartaa adiga ka dintid xabadaas adoona wali meel begelinin duntii waatan labadii afa xabad baad dhex gashanaysaa xabad ma dhex gelisay kadib tan baad soo gelinaysaa tan ugu horeysa haga mad dhiganaysaa qaybtan soo gashtay tan kala qaadaysaa waxa soo gelinaysaa qaybtan kale haga mad dhigaysaa duntaad afka isku toosinaysaa saas baad u jiidaysaa labadaba si ay isku leekaadaan waxaad arkaysiin xabadii aan dhex gelinay intaan xariga meel basunin in halkaas taagan tahay waxa xabada halka ku xidhan doonto insha Allah marka dunta mar labaad isleekaysiisanayna isku toosiso haddaad doontid markay laba kalar oo kala duwan ay tahay waxa sameyn kartaa haddaad doontid labadii baad marna xabadna tan baad ku leeysaa marna tan haddaad doontid isku wada isticmaalaysaa kalar kaliyaata marka saas sameysay xabad labaad ku soo ridid dib baad ugu celini tan baad ka soo dhex tusini wad geejinaysaa saad arkaysaan way istaagtay ana dunta soo wad ana dunta labadaas soo dhex geli xabadaas iyo xabadeedaas kale
فهمتي مرتينيا codkayga aad maqlaysiin arrintan sidee kugu soo toosin hoos baan u yar hadlay xoogaa marka xaggaas maraysid waxa sameynaysaa soo qaadana kulay qaybtan buluugan ka dhigi doonaa qaybtan kalena casaankan ku xiri doonaa si ay iskugu noqoto mid isku macnaha waxa isku dheeli tiran mid tacaadul u taqaanid markay saa u kala duwan yihiin ilaa labada dhinac way kala duwanaanayaan moogtahay waxa sameynaysaa marka labada dhinac waad ka dhigi kartaa midba qayb nooc kalar gaara amba waa is dhex gelin kartaa mar buluug mar casaan amba kalarku ku yahay ku doona waxa labada xadhig waa isticmaali kartaa labada xadhig ka doonaysid baad kullu mar ku soo shubaysaa fahanti barajeynaya iska dhiijiso seen hadhow kaaga soo daba furfurmin haddii kale hadhow bay kaa soo daba furfurmaysaa moogta xoogaa korsaa ugu yara qaado si aad dunta laba kuulood kaaga hoos gelin xabad keliya aad ugu wadid markaad doonaysid labada xadhig ka doonti waa isticmaali kartaa waayo maxaa la yiraahdaa qaadis iyo jiidis waa sida guri geyn ma yiraahdaan Soomaalidu marka waa kaas imka xano hadhay xabadii u dambeysay baan xiraynaa xabadii u dambeysayna saan idin sheegay markaste ta u dambeysa aad ku xiraysid oonay waxba kale ka dambeynaynin meeshaasi waa inaanad guntin waa inaanad hoos gelinin markaan ku khaldamay adarkiseen waan hoos geliyay kadibna waan xasuusto waan ka saaray anoo hadalkayga waan ku khaldamayaaba kuusha saas bis kaga khalad badan tahay haddana khaladkaas aanad garanaynin oo iska fahmi karin way markii ugu daran tahay ku dhibaysaa waxay dhici karta inaad bahal dhan oo taagtay oo dhamaysay oo isleedahay waan dhamaystay wallahi ma sha Allah baab waxa dhici karta inay waxan ku zero kugu soo celiso dunta si ay kaaga soo furfurmin ila waad jaraysaa moogtahay inkastoo markaad gunudid hadaad gundido hoosta gelisidna ay adag tahay si u soo furata haddana si waliba badan xabad dib saa uga soo celi kadib xaqa ka dhex jar kadib tan jar tanna sidoo kale jar markaad jaraysidna iska ilaali maqaskan yar wuxuu ku fiican yahay halkaas buu ku leeyahay halkaas buu ka af leeyahay saas baad u gelinaysaa jag halka yar buu kaaga jaraa maaha maqasagaas ilaa xaggaas afkiisu ku joogo bas qaybtii labaad baan u jaranaynaa xadhig yar qaybta labaad sidii oo kale qaybta buluug baan ku xirnay qaybtana casaan baan ku xiraynaa xabad kaliya toorta dhex geli kadib labada koona soo wada sud koonahan iyo koonahan soo sud marka labada koona soo sudid isleekaysi labada af isleekaysi sidaas dhagma iskugu yihiin mid baa yara dheer isleekaysi xabadan soo qabso xidh ta hore ma xidhaysid ta hore waad gelinaysaa waa tii halkaas dambe ku istaagijinaysa baashi ku istaajinaysa haddii kale dhexday ka bilaamaysaa halkaas sare bay ka maqnaanaysaa marka tan labaad aad xidhid bitaasina la istaagaysaa ay saa u taabo leedahay martay inay yara jilicsan tahay jiitan hoose jiid waa taas way istaagtay arkaysiin baan filayaa ku soco ninkan dhinacan kale ku soco kaas asaankan ku wadaynaa waayo qaybta kale buluug baan ku soo xirnay qaybtana asaankan ku wadaynaa insha Allah kulay waxa laga yaabaa in Soomaalidu kala lahjado duwan yihiin ina lahjadaadu ka duwanaato tayada oo kala raadsan ku sheegaya fahmi weydid ay macnaha isku lahjad ka ahayn laakiin muhiimadu waa inaad kala raadi arkaysid waxa markaan aad arkaynin bay muhiim tahay waqti in lagu sheego lahjadaha badan marka hada asaanka waa arkaysid sidoo eeg yahay guduudna waa la yiraahdaa lahjadaha qaarkood hadan isku yaraday xarifad iska dhigdhigo markaas
hadda insha Allah intaas baan kaga seexanayaa wax bariya meelahaas baan intaa kasii wadi doonaa hadda waxaan ku wadi aad baan faraxsanahay maadaama intii ugu hawsha badnayd anaha iska dhameeyay tan iyo ta kalaba wixii haray waa wareejis marka insha Allah wareejiskaasna waa la qaban doonaa waad ku mahadsantihiin daawashadiina waxaad ku mahadsantihiin kale inaad markasta ila socotiin khaasatan inta markasta ila socotay mar walba ay daawata si gooni aan ugu mahadnaqayaa aad baad mahadsantihiin ha kuntin ha hoos gelinin xid gunut kuntiimo u samayso kuntiimada waxay kugu caawinaysaa saan kuu sheegay inaanay kaa furmin kaa kala go'in bay kugu caawinaysaa hoos geli marka soo hoos gelisid jiid guntintii oo dhan xagan ku xaree hadii kale waxay ka noqonaysaa guntin dhan oo halka ka soo jeeda in la arko maaha inaad xareysato guntinta isku day inaad kolba in yar jiido inaad xoog u jiidana isku dayin waxa laga yaabaa in ka kala goodo baashan maanta dhan aad waday ku tacab beeshay in ka goodo waa dhici karto day ka goodana waa dib u soo bilow marka ayar samee kadib si ay sheegayay xagan ka soo celi tani kalena geli donaha markii irbadu bahalada kuulo markii isku dhow yihiin xoogaa way ku dhibayaan markaas halka aad marisid iska jar bas waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen saas bay ku soo baxday quruxda badan leh markan asaankii waa koonaha maray markana buluugii waa koonahaas maray wareeguna sidan ma ahaan doono wareeg waxaan sameyn doonaa sidan wareeg sidan oo kala ah waxaan sameyn doonaa linkaas waxaan ka dhigi doonaa buluug linkaas casaan linka kalarka kale si uu kalarkan ugu soo baxo insha Allah markaas ugu dambeyn aan soo wada dhameystiro video ku xiga baan idinka soo dhigi doonaa video ugu dheeraaday xataa kuwii aan lahaa waan tusi doonaa qaybihii aan diyaariyay idinkuma tusi karo uu dheer yahay marka aan kuwan soo dhameystiro labadan baa idin soo duubi doonaa insha Allah sidii ku soo baxeen ay noqdeen labadan iyo kuwii hore u diyaariyay ilaa kuwa calanka ilaa iyo waxa soo dhan marka waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh like iyo share tana ka iloobin subscribe